soo dhawaada mudanayaal iyo murwooyin si toosa baan u bilaabaynaa xiisadda soo dhawaada dhammaantiin aad baan idiin soo dhaweynayaa soo dhawaada si toosa baan u bilaabaynaa xiisadda mudanayaal iyo murwooyin soo dhawaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada falanqayntii toddobaadlaha ahayd aan toddobaadkii u dambeeyey ku jirnay soo dhawaada idil ahaantiinba meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan waa duhur walba iyo xiisadii aan sida tooska u soo geli jirnay soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan waa bilaabaynaa hal saac waan ku jiraynaa xiisadda kadibna waa soo gabagabeynaynaa insha allah waxaan dul istaagaynaa lacagta ugu horeysa baan ka bilaabaynaa soo dhawaada inta ardaydu imaanaysa baa isla sugaynaa kadibna si toosa baa u bilaabaynaa insha allah soo dhawaada galab wanaagsan dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin calasow cabdiraxmaan أحلى عبد الرزاق سلام بات محمود نعم سولو هذا دمانتين أنا waxaan maanta ka hadlaynaa intaan horta falaqaynta u guda gelin qaacidooyin muhiim ah oo qof walba mar walba uu niyadda inuu ku hayo muhiim tahay qaacidada koowaad oo ah qaacidada koowaad oo noo sheegaysa 80% suuqa okay qaacidada labaad waxay iyaduna noo sheegaysaa qaacidada labaad waxay noo sheegaysaa qaacidada ah inaad waxa weeye maaraysid maaraynta stop losska iyo lacagaha qaacidada saddexaad oo u dambaysa waxyaabaha aan ka hadlaynaa waxay tahay saaxiibyaal in 40 beri horta aan ku jirnay ay waxyaabaha ugu badan oo muhiimka ah ay tahay qaababka lacagta ku qaadanaysid iyo waxa weeye sidaa suuqa u sugaysid iyo qaabka stop losskaaga iyo lacagaha aad ku jirtid aad u maareynaysid marka qodobkan saddexaad waxa muhiim ah qawaaniinta qaacidooyinka lacagaha ku qaadanaysa xeerka kan 80% suuqa inaad sugto wuxuu kaa caawinayaa inaad entry heshid goorta ka soo tagtid taasna
oo lacagtii aad qaadato entry ku qaadatid waa inaa maaraynta stop losska iyo lacagaha aad ku jirtid tan kore waa isla fahanay laakiin tan bay ardada badidood aysan aad u fahansanayn oo aad qaarkood uga madax adaygaan aysan aad u adeegsan waa ka xumaa cilada qolka jirta ilaa hadda kooxda farsamada gacanta ku haysa marka wuu ku soo qoraa mar walba qolka haddaa lacag qaadatid lacagtaas inaad markaad qaadatid aad adeegsatid waxa weeye 30 bib 40 bib wixii loo gaaray lacagta marka ku dhaqaaqdo stop losskaaga entry-ga keen kadibna faa'iidooyinka qaybta ugu badan xiro qaybta kala soo daa haddii xataa lacag kale kugu soo laabato ma khasaaraysid waa qaab ka mid ah qaababka aad waxa weeye u adeegsan aw sababta analyzer baad suuqii baa falanqaynaysaa taxliilinaysaa okay lacagta halka in ii gaartaan raawada okay lacagta waxa laga inta dhaqaaqdo inay kugu soo kala wareegto maxaa samaynaysaa marka faa'iidadii bay kala laabanaysaa ama stop losskaaga kaaga dhacaysa laakiin haddaa maarayntan ama xeerka kan ama qaacidadatan adeegsatid kuguma dhacayso waa adag tahay inay kugu dhacdo inaad suuqa adaa markaa suuqii ka guulaysanaya suuqii isagu kaama guulaysanaya marka waxa muhiimka waxay tahay xeerka inaad qaadatid qodobka u dambeeya aan rabo oo inaan gunaanadka baan ka dhigay toddobaadkiina aad uga hadlo qodobka kan oo ah qodobka afraad oo ah suuqa hala xifaaltamo badan waxa arkay dhalinyaro badan suuqa la xifaaltamaysa lacag baa waxay kaga dhacaysaa stop losska uu xifaaltamaya wuxuu leeyahay ilaa aad lacag kale geshid suuqii ama tan ku laabo baydeeda u raac bayd markaas sal soo aadaysa qofku waxa ku dhacaya wareer baa ku dhacay jah wareer accept kare haddii lacagtu waxa weeye aad ama aad maarayn weydo stop losskaaga ama 80% inta ka digtay aad lacagtii diyaarsanayn qaadatay anu waxa aaminsanahay xirfadda tani dadku siday ka haystaan ama fikirka ka haystaan fikir ka duwan baan ka haystaa marka si loo fiiriyo uma fududeeyo suuqa kale ay dadka uguma dhigo wax fudud oo qofkii aad u baran karo oo waxa weeye uma fududeeyo oo si dhakhsan u ku baran karo uguma dhigo waxa uga dhigaa waa wax fudud in la barto laakiin in lagu dhaqmo waxa aad baratay ay adag tahay waa labo ya yes waa wax fudud oo baran kartaa stop loss meesha la dhiganayo take profit ka structure-ka patterns-ka noocyadiisa kala duwan waxaas oo dhan baran kartaa laakiin si ugu dhaqmi lahayd ama ficil ugu bedeli lahayd waa wax adag haddii aan ratayna been idin sheego de idin sheegi kara waxaa idin kara waa fududaa laakiin waa wax u baahan suuqani taxadar khataro badan marka loo fiiriyo ganacsiyada online-ka ah anigu waxa aaminsanahay waa waxa ugu sababta maskaxdii baa ka shaqeynaysaa waa soo jeedaysaa waa falanqaynaysaa ficil physically and mentally baa u shaqeynaysaa oo maanta dhan waxa weeye computerka lacagaa kala falanqaynaysaa waxa weeye gacmihii baa adeegsanaysaa waa fikiraysaa waxba analyze garaynaysaa emotionally xataa wuu ku jiraa suuqa kan waxa weeye dareenka qofka leh waxaas oo dhan waxay u baahan inaad marka waxyaabaha marka jira waxa weeye dhalinyaro suuqa kani runta haddii laga hadlo xataa psychological qofka uu saameeya marka xaqiiqada laga hadlayo tusaale aan siinayaa seebuu qofka u saameyn karaa nafsiyan wuxuu u saameyn karaa qofku wuxuu haystaa lacag $500 buu soo helay deyn buu ku soo helay si kastuu ku keenay suuqu la soo galay wax yar buu isku beegbeegtay wax yar buu boobowsaday wax yar buu barbartay isla markii wuxuu ku shubtay koontadii lacag suuqii buu galay lacag buu qaatay uu ku guulaystay lacag kale uu qaatay uu ku guulaystay wuxuu isiraahdeen bandar baa jiftaa uu galay loodkii weynaysiisa wixii buu waday waa dhinac buu u dhacay qofkaas dhaawac intee la eg baa soo gaari kara wuxuu isleeyahay maxaa iga khaldan aniga ma anaa damiina ma anaa wax kale haystaan ma waxa kana aniga rabin ma bitigayga xun qofkii oo dhan wuxuu iska dhaadhicinayaa marka waxyaabaha marka jira waxay tahay nafsiyan qofku uu saameynaya marka anigu taladaydu waxa weeye wax walba haddaa xeerkiisa ku dhaqantid waad ka guulaysan nafsiyanna dhaawac kuma gaarayo maskixiyan dhaawac kuma gaarayo adigiina iskama shekinaysid qof waxaa noqonaysaa markaas qawaaniinta raacay
dad badan oo 40 beri aad ugu faa'iiday baa jira oo waxa weeye guula taabanka ka gaaray dad iskaga haray way jiri karaan dad badan waaniga hore sheegay haddii wax la wada bilaabay inta meesha u dambaysa gaaraysa waa diyaar marka taladaydu ani waxa weeye suuqa intuu isku ka diyaarinayso markuu isku ka diyaariyo aad qaadatina suuqa kan adigu adeegso maarayn stop loss kaaga intriga keen lacagta daarta 30 beri ku dhaqaaqay faa'iidooyinka ay kala xiro هذا العقد كوسو لابتن أنا وح آمسناهي لبدن قاعدو إني تطبضن عاونا يا با آمسناه أو كونتضو واحد بدن كبدليان لبدن قاعدو لبدن بقول كي بسيتات إنه قف السوق أو سمر ياشو إيو مارين تستوب لوسكا يلعجها عاد كشتي دينا الماريس أو فاستوب لوسكا كيستي إن إنتريجا سولو سمسم إن استوب لوسكا إنتريجا كيستي تيك بروفيت كاجي وحويه انت اللي قارنا فايدوينك قيبتك كلا حرتي قيبنا هذا waxa lacag marka 40 bibix ilaa iyo 50 bibix loo gaaro ku dhaqaaqo okay ma jira qof labadan qaacido aad ugu dhaqma xaqiiqada aad ka hadlay ya aad ugu dhaqma labadan qaacido ya aad ugu dhaqma labadan qaacido waxaan hubaa haday noqoto tareedii shalay haday noqoto qofkii shalay suuq qaatay ya shalay adeegsaday horta qaacidada ya shalay adeegsaday قاعدة يا شل أديك سيد تن بحية أديك سيد قاعدة تيا أديك سيد مر والبقى ترى قادم يا أديك سيد قاعدة تن stop loss كمارين stop loss كا يلا عجها أدكتشت يا أديك سيد قف أديك سيد متشنا شرع سوق قرآني قاعدة أديك سيد قاعدة أنت فلقين تقولي أمانك بذكرين قف كأديك سيد الشرع هالسوق قرآن لعجتة اوكي سلام باكملة سمسم ابراهيم باكملة الرشد وكملة اوكي سلام لكن استاذ واحد تريد مقالا اوكي بمالك ويصوصر عن تريد ان شاء الله سمسم ده واحد ذيك سدا مركي هوركم من دق مجري لك هذا وكم هذيك وانا ذيك سدا هل ميدا مركي يدين شيء صاحبين انا جا واحد سمية سوين تريد واحد له بدي بقول كيبا إن أول واحد سميه سيديتن لكن هذا واحد سميه بقول كيبا إن لحظة بعصمية إن سوين تريدك إن مركز فيرسي أو أنت كل هذا واحد سميه واحد له إن قيبتا إن مال لها بعصمية إن إيو إن أنا استبلوس كإنتريجا كان فإذا كان حرته أنت عن سوين تريدك وسيديني أنا واحد ويا وأنت دي صار لعبة أنا لعبتني تيك بروفيت كي قبل وحوي استغلص كي قبل عسى انتريا سوق كلا اي معنسا تشوف مشان جو سوقنا انا كراي فايده من واحد وقاعدين كاد كواديك سدو ان waxaan sameeyaa lacag hadaan arko inay soo laabatay oo ku soo laabatay interigi hore aan ka qaatay siina dhaaftay faraha ka qaada masi aysado oo waxaan adeegsadaa xeerka ah suuqa hal xifaaltamin ba adeegsadaa xifaaltanka dad ba ereygan wax laga aqoonga hadaan terminology ereyga kan idin sharaxo xifaaltanku waxa weeye ina suuqi aad la ficiltay tiraahdo wayna hadda faa'iido ka soo celiya suuqa la deeyo aggressivity suuqa aad macnaha la deeyaasho ka awood badan yahay suuqa adoo kuntada ay wada lacag kororka ku jirta ama diyaarinaysaa la diyaarsanin dhaxda ka gashid waad ku khasaar marka taladaydu waxa weeye isku daya ina xeerarka ku dhaqantaan وأردت هاي إن حركة المطلق لكن وفوت إلى فوركس بريدي سيمبل أنت سأقول بحياتاس وهربع يقدر إذا طلع ينسيني أنا جاي أشتري أفرت نقاطي إنسيبية ده أفرتن بلس بي بسبوعي أها تي بي جاي ستوب لوس 20 بيز أوكي محمد عبد الله محاسن يسمرك سي أمار سي أمار يسمرك محمد عبد الله سو ما رأيت إنك هذا قاطي أفرتي تري سو قربان أنا رجنا وحوي قاكم مارس أوكي سادام وعيرها ما أنت إلى السوق فإذا السوق كرايزي أوكي إن
dad badan baa soo gala oo raba inay suuqa faa'iido ka raadiyaan iyagoo wax qurux badan sababta meesha faa'iido u timaado laakiin waa inaad mararka qaar aad ku xisaabtantaa in suuqu aad sugi kartid dulqaadka baran kartid lacaguhuna hadda saa uga jeedo aad ba isku diyaarinaya maanta waxaa kaloo raba inaan ka hadlo doolarka iyo qaababka aad u fiirin kartid doolarka iyo siyaabihiisa kala duwan iyo sida aad maanta dhan waxa weeye aad uga ficiltamaysid waxyaabaha aan aadka rabo doolarka horta anigu waa idiin sheegay doolarku saameyn buu leeyahay saameyn xooggan buu leeyahay markay noqoto dhanka suuqa structurekiisa markuu samaysto suuqa saameyn buu leeyahay shalay structurekan isku diyaarinay fayda yar uu aaday maxaa u jeedaa fayda yar uu aaday fayda yar uu aaday mu jeedaa imisa biib bay dhaqaaqday بعد الانسداد صح؟ شنو يكون مركو دقائق استبلوسك وسو رغي انت اللي ايام كان ما شاء الله فايدوي قال له كحرك صح؟ اوكي انت رو دقائق انت مركو دقائق سيدات بيب دقائق سما waxaan tagaynaa marka lacagta ay aadka iskula socdaan imise iyaduna soo dhaqaaqday oo barta ka soo dhaqaaqday waxay soo dhaqaaqday iyadina intana soo dhaqaaqday walaal balse aan tagno NCDUSD aan tagno inta soo dhaqaaqday NCDUSD oo aad waatan meesha shalab ka soo dhaqaaqday NCDUSD imise soo dhaqaaqday iyadana 8 bib soo dhaqaaqday dhino waa 8 ka bib soo dhaqaaqday doolarka 8 bib dhaqaaqday laakiin corrective buu ku jiray وجدا يعني وحر وين انا ليس كاتفيت لكن لعقتني استراكشر بيدنا سمينيسي waxa weeye dollarkii waa saasay marka dollarku saameyn xoogan buu ku leeyahay lacagaha marka haddaad aragtid inuu halka inuu maray bartan soo dhameystay uu iska soo dhacay bartan imaanaya marka halka yimaado marka waxba ugama dhigna meeshiisii oo wali ka sugaynaa okay laakiin marka structure bay sameynaysa NCDUSD structure-ka ay sameynaysa inta yar ku dollar ku dhaqaaqay iyadana intaas soo dhaqaaqay soo kadibna waa laabatay marka wuxuu u soo laabatay intay laabatay fiiri dollarkii inuu soo laabatay 52 bib uu laabatay iyadina intii kale laabatay marka waa inaad fi sababta NCD dollarku saameyn buu ku leeyahay GBPUSD ya kamid ah hadda lacagaas marka hadda anagu maxaa ka sugaynaa suuqa ama aniga taladaydu tahay Axmed Darwishaan horta dollarku waa muhiim udub dhexaad buu leeyahay udub dhexaad weyn buu leeyahay oo saa'ida dollarkana aad bay iskula socdaan saameyntiisa aba structure raacaya lacagta waxay sameynayso structure-keedu ka muhiimsan yahay laakiin dollarka ma inkiri karno xoogaa oo waxa weeye inkastoo lacag walba aan qaab dhismeedkeeda fiirinayno iyo dollarku okay hal sii baa jirta ardaydu aad uga hoos baxdo yes dollarku bartan ma soo gaarin labada meelood ma soo gaarin laakiin structure-ka kaloo diyaarsanaya intuu structure-ka diyaarsanaya NCDU structure u diyaarsan yahay ka faa'iidayso structure-kada daarta haddii laakiin aad waxa oo hada day trader tahay konton bib 60 ka bib ka qabso 80 ka bib kaga bax adoo stop loss ka soo raray saas sameeyay ma garan laakiin waxa soo socda suuqa hadda ama toddobaadka kan bartamihiisa dhamaadkiisa ilaa saacada soo socda wax aad u mucjisa ama soo socda waxana anigu hadda sugay waxa weeye inuu si qurxoon u soo dhaco dollarka halka yimaado markuu halka dollarku yimaado saaxiibaya lacagaha kalena istiyaarinayaan كل وحوي دولك ودا imaanaya lacagaha oo dhan salbi aadeen dollarku uu jaysanaya bay u jaysan sababtoo ah dollarku structure-kiisa waa 1 iyo 2 iyo 3 ga inuu soo yimaado double bottom sa u samaysto kaliya nooga dhiman wax uga dhiman hadda oo halkan uu ku imaan karo ilaa 40 bib 50 bib uga dhiman wax kale marka xoogaa arrinta waa inay aad u fahantaan dollarka saasa ka suganaa euro USD waa maxay marka waxaan ka suganaa euro USD halkan lagu celcelinaya saaxiibay laakiin aniga aragtida aan uga jeedo euro USD sax waa in kor loo sii bushkaray ilaa halka ay tagto ilaa halka saa loo sii bushkaray kadibna si qurxoon lacagtan u soo dhacdo halka dad analyst-keeda saarna lacagta ilaa barta ay tagto sida loo bushkaray qaybta kore ay saa u tagto asadin ku tagto kadibna soo dhacdo maxaa yeelay inta uga dhiman dollarka iyadana uga dhiman 100 bay tagaysaa marka lacagtan dollarka aad ugu xiran tahay structure-keeda laakiin anagu hadda waxaan u imaanaa GBPUSD meesha marayso waa meel xasaasiya maxay nasiisay lacagtani 1 iyo 2 iyo 3 isku hoos jira bay nasiisay shalay aan halka dul istaagay waxay nasiisay 1 iyo 2 iyo 3 habeenkii horena aad baa idinku sharaxay
lacagtan waxayna siisay 1 iyo 2 iyo 3 aad isku hoos jira 1 iyo 2 iyo 3 bayna siisay si qurux badan oo corrective ay lacagtan barta ku tagtay hadda halka fiirisa hadda corrective halka ku tagtay waa wuxuu yahay corrective aad u qurux badan bay lacagtan barta ku tagtay hadda maxay sameynaysaa marka lacagtan aragtidayda aniga Axmed Darwish ahaan lacagtan meesha tan ay tagtay qaab kale ku tagtay marka inay lacagtan noo sii socoto oo meesha kore noo tagto dollarku intuu istiyaarinayo halkaas soo tagto soo dhacdo sababtoo ah waxa uga dhiman laftigeedu ma aha wax aad wax way u badan boqol biib wax gaaraya waa u dhiman inay halkaas ascendingka ku sii tagto lacagtani oo corrective-ka ilaa halka kore loo sii bushkaray meeshan ay maraysana waa 1 iyo 2 iyo 3 structure kale ku sii hoos jiro laftigeedu ma aha meel hawl yar meesha tan ee xataa hadda joogto waxayna ku xiran tahay dollarku u jahaysanay marka meel cajiib ah iyadu laftigeedu ku sugan tahay waqti xaadirkan oo ka soo dhici karto lacagtan laakiin wax yar insaan loo sii bushkareeyo baan ka sugaynaa oo waxa weeye aad isku diyaariso hadda xasuusatay sanadka hore lacaga waxa jiray double top iyo ascendinada noocan oo kale loo sameeyay marka in yar inay saa u falaashto kadibna soo dhacdo baa sugaynaa haddii ay bartatan meesha xoogan dollarkeena aad ugu xiran tahay oo aan structure hadday bartatan ka laabatana way sugaynaa intay noo soo dhacdo correction continuation qurxoon bayna siinaysaa ilaa bartatan inay imaanaysaa laakiin structure-ka lacagtan ku sugan tahay oo structure aad u qurux badan oo waxa weeye silkeeda marka anigu waxaan dhihi lahaa laba lacagta inay aad u ilaashataa oo 1 iyo 2 iyo 3 gaas markay saan ugu soo dhacdo waxa weeye lacagtani aad iyadana u gaarsataan idinkoo fiirinaya marxaladda ku sugan yahay dollarku idinkoo barbar dhigaya structure-ka lacagtani sameynayso structure qurux badan weeye laakiin aragti ahaan aniga wejiga kan waxa ka xoogan wejiga ka saaxiib wejiga kana ka xoogan double top-kaas sababtoo ah dollarku markuu double bottom sameeyo lacagaha bilcagsiga ku ah oo dhan double top bay sameeyaan badida structure double top bay sameeyaan laakiin ma laga yaabo inay saa kusoo laabato of course oo laga yaabo inay kusoo laabato haddaad fiirisid waxa weeye lacagtan waxyaabaha ay sameynaysa ay tahay wax cajiiba meesha tan ay ka samaysanayso marka aan sugno dollarku waxa uu na siinayo iyo lacagtan structure-keeda lacagtana bartatan inay kasoo laabato waa macquul saaxiibayaal macquul ahaanshaha kaloo dhici kara in lacagta barta kasoo laabato balse structure-da halka naga siinaysaa ma inkiri karna haddii qawaaniin kale na siisiso 1 iyo 2 iyo 3 ee lacagtan na siiso kadibna inay sidaa quruxda badan lacagta noogu soo hoobato structure-keeda markaad fiirisid structure-ka ma inkiri karno laftigiisa waa structure aad u qurxoon oo haddaa xataa sii baartid ama lacagta sii fiirisid structure-ka halka ka samaynayso iyo aad u qurxoon inay bartatan tagto double top-kaas kale iyo kan saasna laftigiisuna waa cajiib marka aad baa lacagta barta uga waarsanaynaa mudanayaa limbu si qurxoon inay noogu soo dhacdo 1 iyo 2 iyo 3 aad buu wax iskula socdaa lacagta NCD USD aad buu isku shabahaa labada lacagood saaid buu isku shabahayaan hadda hadaad degtid lacagta NCD USD waxay iyaduna samaysanayso meesha tan ama structure ka samaysanayso waa structure mucjisa ah dad fiirisid waxay ka samaynayso laakiin anagu double top-ka waxaas oo dhan anaga u gaarsan lacagtani qaabka iyaduna barta ka samaysanayso aadka labadan lacagood isku shabahaan baa rabaa inay tuso saaxiibyaal one iyo 2 iyo 3 bay lacagtan barta ka samaysatay structure ahaan si qurux badan corrective-ka ay halka lacagtan ku tagtay hadaa saas u soo durkino oo barta dhigno 1 iyo 2 iyo 3 oo separate kala dhigno lacagtan waxa ujeedaan inay halka ay kaga jirto wax la dhaho structure ka madax bannaan waxa weeye isku xirka charts-ka la dhahaa noocan oo kale isku xirka charts-ka baa la dhahaa marka kale waxaan adeegsanaynaa inaan halka saa u adeegsano oo dhahno 1 iyo 2 iyo 3 ga saa u adeegsano ujeedaan structure-ka halkan structure kale oo ka madax bannaan structure-ka kan balse isku hoos jira ayna siiso lacagtan taqriiban qaabkan aad adeegsan kartaa 1 iyo 2 iyo 3 gana saa u adeegsata halkaasna structure kale ka siinaysa laakiin waa sida GBP kaad ay sameynayso kale marka lacagta tan laftigeedu waa haddii ay kala socdo structure barta ka samaysanaysaa ama qaab dhismeed kale baa halka ku jira lacagta tan marka weli waxaad u jeedaan in lacagtani marxaladaha ku sugan tahay ama qaab dhismeedka kan ay ku jirto qaab dhismeedka inay ku jirto lacagtan ay samaysanayso inta barta marka la timaado inta halka marka la soo taabanayso oo waxa weeye soo taabanayso taabasho kale hadda saa u fiirino marka
ama wejiga kan kale ku fiirino lacagta tan ay samaynayso oo aan hal saac haddaan hal ku laabano haddaan ku laabano lacagtan waxayna siinayso aan saan dhahno one iyo two iyo three ay saa noo siinayso lacagtani ma laga yaaba inay barta lacagtani kasoo laabato marka oo structureka saa ugu soo dhacdo haa waa suurtagal laakiin weli lacagtani corrective-kan ay ku jirto inay sidaa loogu sii bixkarayo halkaa corrective saa nooga siisa maahan lacagtani qaab saasa kadibna saa usoo dhacdo correction continuation saa noo siisa maahan laakiin halkaa inay corrective yar oo ciriiriya saa usii socoto lacagtani waa kasii sugaynaa corrective saasa kama ujeedaa zigzag camal ah lacagta tani qaabkaas oo kale ah saa halkaa naga siinaysa kadib saa usoo dhacaysa lacagtani qaab noocaasa inay ku socoto waa inta doolarka hoos kasoo taabanaya ee lacagtani wejigaasna siiso marka structure ahaan lacagtani qaab dhismeedka ay hadda ku sugan tahay ama wejiga ay ku jirto ama marxaladda ku jirto marxalad aad u qurux badan wey ma aha marxalad laga dayrin karo marxalad structurekeedu ay ku jirto ayna diyaarsan tahay lacagtani markaad fiirisid qaabkeeda iyo wejiyadeeda aniguna aan aad waxa weeye uga rajo qabo lacagta inay fursad qurxoon soo aado oo sel haddaa xataa sii fiirisid dada xataa saa usii saaran waxaad ka arkaysaa lacagta ama ka dareemaysaa structureka samaysanaysa inuu yahay structure aad u qurxoon oo aanan waxa weeye shaki badan ku jirin lacagtan inay soo kala wareegayso laakiin ay waqti qaadanayso oo ah inaan sugno qaabkeeda iyo isdiyaarinteeda laakiin lacagtani diyaar bay waxay u tahay inay soo dhacdo saa'id bay diyaar waxay ugu tahay lacagta inay soo aadisan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa aad ilaa iyo galabta aad u ilaashada lacagta tan aad u ilaashada ilaa galabta ilaa berri lacagtani aad bay waxay diyaar ugu tahay inay soo laabato structurekeena siinayso iyo wejiyadeeda corrective-ka inuu dhammaaday baan ugu jeedaa marka high time frame-ka saa u fiirisid lacagtani 4 saac haddaad degtid inuusan waxba correctionka ka dhimanayn baa ujeedaa saaxiiba aad lacagtan u diyaarsan tahay saaid u diyaarsan tahay saa u fiirisid lacagtan waxay samaynaysaa wejiyadeeda quruxdeeda sida loo yiraahdo bam inay soo dhacdo correction continuation baa ka dhiman shalay way soo dhacday qofkii waxa weeye aad ula socday iyada marka silba ka sugnaa anytime bay soo dhici kartaa aad bay u diyaarsantahay lacagtan meeshay joogto meel kusoo kala wareegayso oo silku aadaysa saaxiiba NCT-ka waa la mid aad bay la mid ugu tahay lacagtan waxay samaynaysaa laftigeedu oo saa'id wuxuu diyaarsaday double top 1 iyo 2 iyo 3 corrective qurux badan lacagtan laftigeedu inay soo dhacdo saaxiiba aad inay u soo dhacdo bartan timaado mar walba diyaar bay u tahay wax anigu ka dhiman oo hadda aan dhihi karo waxaasa lacagta ka dhiman xataa hadda halkaasaa ka soo qaado bartaa soo dhigo lacagtan aan diyaar ahayn uguma jeedo aad u diyaarsan tahay sil bayna soo aadaysaa waqti kasta iyo mar kasta iyo xaalad kastaba in aysha ku haysid baayadii NCD USD iyo aad kula talnaya iyo GBP USD iyo NCD kaadba meeshay marayaan qofkay dhaafaan lacagaha kan bisha tan saddexdaa lacagood inaa waardiye ka haysaa baad kula talnaya NCD kaad NCD USD NCD GBP USD saddexdaa lacagood meesha ay marayaan waa meel aan anigu waxa weeye toddobaadka kan si kasta marka u yar tahay 100 biib 200 biib waa soo dhacayaan lacagaha kale marka u yar tahay minimum ilaa halka uu imaanaya 200 biib ku dhawaad 100 biib waa soo dhacayaan 100 biib 150 biib waa soo dhacayaan marka marxalad kasta waqti kasta bay dhaqaaqi karaan oo fursad bay waxay u diyaarsan yihiin aan inaba caadi ahayn inta yar oo waxa weeye wali NCD kaadi waxay samaynayaan waa inaba caadi ma NCD kaadi hadda saa u sii fiirisid waxay samaynayso oo wax mucjiso ah hadda kaliya halkaas aad diiradda u saartid waxayna halkaa naga siinaysaa kaliya hadda saa u saartid waa wax mucjiso ah kaliya day hadda saa halkaa u saartid waxayna siinayso waa wax aad u diyaarsan hadda saa u sii fiirisid structureka bartaa naga siinayso ma aha structure hawl yar 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2
lacagtan structure-ka halkaa naga siinaysa haddaa hal saac sii tagtid ma aha waa wax saa loo xoojinay bam soo dhici karto mar kasta marxalad kasta iyo xaalad kasta aad ay ugu sii diyaarsan tahay lacagtan marka inaad aad u ilaashataan lacagaha kale wejiyadooda iyo waxa weeye xaaladahay ku sugan yihiin baan kula talinayaa NCD card weliba aad inaad u ilaashataan NCD card waxay samaynaysaa laftigeedu ma hawl yara halkaa waxay ka samaynaysaa aad uma hawl yara haddaan idiin sii wado oo idin geeyo waxay bartan ka samaynaysaa lacagtani ama marxaladeeda keliya low time frame aan kula fiiriyo waxay samaynaysaa halkaas aan ka bilowno double top saa u saar bartaa structure-keeda lacagtani samaynaysa ma aha structure waxa weeye fiiri dhaqaaqeeda saa u samaynaysa lacagtani ma waxay samaynaysaa waa aad u diyaarsan tahay markaas insaa loo sii xeejiyo marka waa laga yaabaa in intay saan halkan misna ka samaysto 1 2 3 isku sii hoos jira in lacagtan intay saa usoo dhacdo ay bartan timaado kadibna halkaa tagto si qurxoon usoo dhacdo misna oo structure isku hoos jira nase laakiin lacagtani mar walba diyaar baa xataa inay soo aado oo iyada iyo waxa weeye waxay samaynayso anaga wax walba nooga qaalisan iyo wejigeeda marxaladeeda saaxiibal fiiriya lacagtaas u diyaarsan tahay say kandalkeedu u buuxo meesha u joogto hal mar bay shub soo dhihi kartaa lacagtani meesha joogto aad markaad fiirisid double top qurux badan si corrective oo qurux badan oo dhammaystiran oo 1 iyo 2 iyo 3 cajiib uga jeedin 1 iyo 2 iyo 3 qurux badan lacagtani fursadeedu aniga aan dhihi karo waxa weeye kaliya ina ilaashatid koob shaa soo qaado hadaa banaanka aadisid MetaTrader 4kaaga ka ilaasho chartskiisa lacagtani ani waxa ugu jeedo saaxiib bal inay soo dhici karto sal soo aadi karto marxalad kasta mar kasta xaalad kasta lacagta tani ay ku soo dhici karto meesha ay maraysana ay tahay meel xasaasi marka inaan aad u ilaashano way taladaydu tahay aniga ina aad u ilaashataan hadhow lacagta macalin way dhaaftay maxaan sameeyaa laakiin lacagta tani fursadeedu oo fursad ay isku diyaarinaysa sal aan inaba caadi NCD USD na waa la mid saaxiib aad bay la mid tahay iyada laftigeedana in bartaas sidaas halka ay marayso saa loogu soo celiyo meesha ugu dhow imaanaysana waa halkaas iyaduna ina aad u ilaalisaan lacagaha kan baa kula talinaya saaidina u ilaashataan oo aad la socotaan hadhow macalin waa idhaaftay iyo waxa weeye aysan dhicin oo idin soo wada lacagaha dhan waa fiirin doonaa saaxiibi okay dulqaad sameeya xataa lacagta dasa u saartid waxay cirif bartaasa ugala baxday 1 iyo 2 iyo 3 structure 1 iyo 2 iyo 3 qurux badan 1 iyo 2 iyo 3 gaas anigu aad u jeclahay ee samaynaysa lacagtani 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 selbay soo aadaysa GBP USD saddexdan lacagood yeysan idin dhaafin saaxiibayaal saddexdan lacagood wax mucjisa waliba lacagta tani NCD aad bay isku jabahaan double topka hadaa ka soo tagno waxay lacagtana nasiinaysa hadaa halkaas u fiirisid oo cirifka kale aad saarin lacagtana waxay samaynaysaa meesha double topka cirifkiisa korta laga soo tago double topka meesha cirif kala baxay korkiisa bay joogtaa ida laftigeedana ina aad u fiirisaan lacagtani 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 bam ay imaan karto ee meesha soo dhici karto marka waa sababta anigu halkan ugu gaarsanayo double topka kan kaa kore haday gaarto la sii taraarixyana ma macquul laakiin meesha tan laftigeeda structure bay naga siisay structure-ka kan baanu marka aad loo hogaaminaya waa maxay lacagtani waxay u diyaarsan tahay ilaa galabta in iyaduna hal mar saliso dhahdo soo aado halka ka soo dhacdo oo soo aado oo jihada saliso oo soo aado oo qaabkan u soo jihaysato okay oo wax yar inta saa loo bushkareeyo inta yar marka saa loo bushkareeyo dollarkuna wax yar saa isku soo taraarixiyo rag inta yarta 40 kaabi isku taraarixiyo GBP USD na iyaduna wax yar ay saa isku taraarixiso meesha kore saa u taabato lacagahana NCD USD wax yar iyaduna saa isku taraarixiso kadibna saa u soo dhacdo cirifka qaab noocaas la siin kara laakiin lacagaha kale waxay u diyaarsanaysan inay soo aadaan anagu 80% ba ugaarsan marka anagu saddexda lacagood aad ka kula talinay waxa weeye GBP USD NCD USD iyo NCD card maxay samaynaysaa NCD USD waxay samaynaysaa double top si qurux badan structure 1 iyo 2 3 kaga baxday soo dhacda lacagtani barta tan imaanayso aad u diyaarsan tahay aad
1 iyo 2 iyo 3 si qurux badan structure noocaas bam ay soo dhacayso u diyaarsan tahay anytime 1 iyo 2 iyo 3 course jira 1 iyo 2 iyo 3 lacagtani ay soo dhici karto marxalad kasta iyo xaalad kasta GBPUSD maxayna siinaysaa double top ka kore koorta cirka la soo meesha in meel xasaasi joogto 1 iyo 2 iyo 3 hadii kale halkaada u taraaraxana waa arkayna laakiin anagu bartaana hadda ku ugaarsanaa structure kan inuu soo dhaafin 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 qurux badan halkaas double top ka saa cirifka meesha u kala baxday lacagtani ada kanalka fiirisid waa cirif kadibna inay halka lacagtaas ka soo laabato meesha ka soo dhaxdo marka saddex lacagood waa saddex lacagood oo fursadaha cajiibka leh oo aan kula talinayo in aad u baarsataan lacagta tan laftigeedu aad waxba yeesan idin dhuuman wandhay markaad fiirisid cirif uun bay la baxday meesha idin lahaa way la soo tiraaraxaysaa way la soo tiraaraxday aad ba u diyaarsan tahay lacagta see u qaadanaysaa marka qaabkeeba lacagta uga faa'iideysanaysaa double bottom 1 iyo 2 iyo 3 qurux badan lacagta bartan imaanaysa saaxiibayaal correction yar bayna siinaysaa korkiisa halkaas ay dhaqaaqaysaa lacagtan qofkii lacagtan ka faa'iideysta waxa way faa'iido ka sameynaya structure kaas madax laba garab bartaas tagaysaa okay iyada laftigeeduna inaba caadi maaha NCD bayda u jeedaa way bilaabatay si qurux badan bay lacagtan ku jahaysanaysaa meel qurxoon oo ka jahaysatana way joogtaa lacagtan waa aniga waa iga talo lacagtan inta isha ku haynaysa ku haysta iyadana bay qurxoon bay aadaysaa aad diyaar buu u tahay inay jahaysata lacagtan iyadana NCDUSD inay tabta ku soo baxdo waa suurtagal walaal okay waxaan fiirinaynaa marka lacagtan yaa xasuustaa lacagtan waa lacagta idin sheegay idin lahaa fursad dahabiya ba ku jirta lacagtan laftigeeda ma haw yar lacagaha NCD-yada waa aniga ilaa toddobaadka bandiirada aad loogu saaray aad bandiirada loogu saaray aw NCD ka waran macalin biiray waa tan wala lacagtan waxay sameynaysaa lacagtani aniga waxa uga jeedo waa fursad baayo aad u qurxoon okay maxaan raacayaa marka aan fiirino bal horta suuq wuxuu hore u sameeyay walaalayaal suuqu wuxuu hore u soo sameeyay wuxuu suuq hore u soo sameeyay adiga way ku caawinaysaa waxayna ka caawinaysaa wax badan inaad ka sii taxadirtid bay ka caawinaysaa okay lacagta tabta u soo koorta ka tagno aan tirtirno bal halakan aan imaano goobta tan aan imaano lacagtan wixii halakan naga siisay bal aan soo dul istaagno okay waxaan fiirinaynaa ma jirtaa structure-kan oo kale ah oo lacagtani ay horey noo siisay oo ay kadibna ku kala wareegtay oo ay aaday jihada buy ay noo aaday lacagtani inuu kala wareegtay waa buux oo meelo badan baad ka arkaysaa oo ay noo samaysa qaabka meesha waa ka arkaysaa laakiin meesha aad ugu soo dhow lacagtani oo structure-ka noocan oo kale naga siisay oo goobta tan dad fiirisid structure-ka halka naga siisay lacagtani waa structure aynaba caadi ahayn hadaad double bottom-ka hadaad saa u saartay xataa aad arkaysid lacagtani si cirif ahaan u dhaaftay kadibna ay saa u sii laaxatay laakiin anagu diiraddeena waxaan saaraynaa haddaan 4 saac tagno oo si qurxoon u soo saarno waxay lacagtani barta ka samaysay ama qaab dhismeedkeeda halka ka samaysatay si qurxoon bay ahayd lacagtani qaabka ku tagtay kadibna saa u jahaysatay yani descending aad u qurux badan bay barta ka samaysatay kadibna ay descending ku jahaysatay lacagtani qaabkaas haddana maxay barta naga siinaysaa tabtiyo kale bay barta naga siinaysaa double bottom-ka maxay samaysay waa ka double bottom-kii cirif yar bay kala sii baxday lacagtani oo qaabkaas way saa u sii jahaysataa hadda marka maxay lacagtani meesha naga siinaysaa tabtiyo kale bay naga siinaysaa laakiin waxay naga siinaysaa meeshii meel ka duwan bay naga siinaysaa lacagtii oo ah yacni structure-ka suuqa meeshu wuxuu hore uga sameeyey meel ka duwan inay kaa siiso lacagta tan waa maxay marka anigu wejigaan ka sugo waa tan structure-ka qaabka kan shabahaadiyo kale waa dase qabtiyo kale na siinaysaa maxay lacagtani meesha tan hadda marka uga jeednaa saaxiiba lacagta tan waxaa uga jeednaa in meesha tan ay naga siinayso weji ama structure ay lacagta tani si qurxoon ugu kala wareegayso ay ku aadayso jihada ay ku aadayso lacagtani ku kala wareegayso jihada ku aadayso buy hadda fiirino marka double bottom-ka noo soo qaad lacagta bartaa noo saar maxaa uga jeednaa marka cirifkeeda iyo qaabkay lacagta noogu jahaysanayso
hal maalin baa joognaa lacagtani meesha ugu dhow ee imaanaysa waa bartatan qof walbo waxaan kugula talina iyadan inaad ku darsatid listiga waa u soconnaa high time frame baa jooga laakiin lacagtatan xataa waqti xaadirka kan intri waa ku jiraa waqti xaadirka kan lacagtatani intri waa ku jiraa laakiin see u qaadanaysaa qaabka u qaadanaysid baan weli kugula talinayaa 1 iyo 2 iyo 3ga kan lacagtani samaysatay aadka u qurxoon okay candle bayna siisay low tastiya cirif bay kala baxday saana u jabsatay waa qaabka halka naga siinaysa oo kale lacagtani inta ay dhaqaaqaysana waa ilaa halka meesha ugu dhow meesha kale ka sii dhow intaas waa meeqa ilaa wixii dhaqaaqaysa lacagtani 250 aan tagna 4 saac maxayna siinaysaa 4 saac lacagtani okay see intriga u leedahay lacagtani waa maxay 1 iyo 2 iyo 3ga ma nasiisay lacagtan okay ma soo jabsatay meesha tan ha maxay hadda lacagtan nasiinaysaa meeshan waa inay correction naga siisaa saaxiibada correction laba garab iyo madax kadibna all the way up lacagtan bay baaysaa okay ma jira marka wax weji kala oo lacagtan correction hadda maxay bilaabtay marka wejigeeda correction ka bilaabtay 15 minute ma tagtay aad bay isku sii diyaarinaysaa correction keeda ay nii sheegay marka lacagtan correction buu ku jira meesha markaad fiirisid correction bay ka soo sameysay qofkii halka ka soo qaatay lacagtan aad u ilaashanayay oo barta ka soo qaatay ma jira qof correction ka qaatay lacagtan ma dadka aad suuqa u falanqeeya qof correction ka soo qaatay ma jira correction ka qof ka soo qaatay ma jira qof ka soo qaatay ma jira correction ka hoose يا ولا ها محمد عبد الله هدي يا كلا محمد عبد الله يا كلا ها عبد انت كلام جتا قفك ها وقرنتها ها استاذ يا كلا شوفك انا استاذ ساكا ايام قاتل محمد فارح ها انا كقاتل ما شاء الله إلهي بركة واحد دولي هو إلى حرية داسو كلا ترينتي أدوب وحوية حر أطاي سوقي في رسنة فلقينتي قابكي لعبتي 15 minute حوق سارة إلى كذا ثانية هل ساعة وحوية لعجة الانتريال إن أنت كلام قادم أما حولك كلام تشيفي لمره فرصة دي يوم ويحرصنتها وحبا إذا ما نافع يا فرصة دي نوارسة correction كان correction لايق بهالك لعبتني نسينيسا all the way up قربينا آدي صار لعبتني آد بين وديار ستة صاحب التضباط كبيرة ويسنو أنا جديد شيء structure كي لعبتني سميسنيسا قابل سميت كذا وتشيديدو وح عن إنبا أن عادي هم بلعبتني سميسنيسا تبدي هالك كسميسا توكلا بين لعبتني وحوي كل وريقسا أما قاب كهالك وكل وريق توكلا هي structure كذا كي موجودة سيسكو شبهان وجيga halka ka sameysatoo kale baytana saa u sameysatay dhaqaaqeedii oo kale bayna dhaqaaqaysaa isla egtaan kala dheeray barta tan ay ka kala wareegaysaa lacagtani maxaa u jeedaan low testi aan innaba caadi ahayn lacagtani bartaan ay sii saado waa maxay inay sii socoto correction continuation marka aad bay isku diyaarinaysaa lacagtani lacagaha NCD-yada aad inaa u ilaashata hadda maxaa yiraahdeen NCD USD GBP USD iyadoo dollarkii NCD USD GBP USD waa wada socdaan ogaada dollarka u dambeeya labada lacag ay structure-koodu aad bay isku shabahaan NCD CAD NCAUD NCD Euro NCD shantaas lacagood fursadda ku jirta oo fursada inaba caadi ahayn saaxiibaya okay NCD CHF aan idin la fiiriyo marka waxay sameynayso NCD CHF double topka kan cirif yar bay saa ugala baxday cirif yar bay saa ugala baxday لكن تحليلنا بدن بالعكس كجرا أد بدن هذا في ريسيد محل لعكتنا هذا سمين سميش أي جوكتو أو مرة ستسأو في ريسيد محاد كأركس صاحب يعني سائن لعكتنا كسوك الوري كرتو هذا في ريساد أي برتا أي جوكتو كسوك الوري هذا سي بارتيد محل كأركس لعكتنا 1 إيه 2 إيه 3 إن ساعة سمين سميش أي جوكتو أنت ساعة غرفتو إن صاد عي كرتو برتا تنكركشن لقسين كرتو حتى ده صاد عي كركشن والتبقى هوستيسي كده من سأو صار عايز العتب كده برتا إيمانس كده لكن أنا ماي حوضا أي لما قر حولا
GBP JPY listigeena waa noogu jirtaa weli waxay samaynaysaa halakana rabnay in laga soo celiyo laakiin hadda waxay u sii eg tahay in lacagtaas barta u sii siqayso oo ilaa korka gaarayso laakiin structure ahaan maxay samayn kartaa oo kale structure ahaan waxay samayn kartaa lacagta bartada corrective saa uga jirta inay saa u soo dhacdo anytime correction na siiso halkaasna continuation lacagtana saa iyadana ku soo dhacdo aysan ahayn bartaa kore aado laakiin meesha kore ku habboon maadaama halkaas jabsatay inay meesha kore saa u aado lacagtan iyo wejigeeda GBP CAD waa qaabka idiin sheegay shalay inay soo dhacayso 1 iyo 2 iyo 3 kala duwan bay samaysay bartii bay joogtaa 1 iyo 2 iyo 3 ga halka ka samaysay aan idiin sheegay oo idin lahaa lacagtani 1 iyo 2 iyo 3 bay samaysay 1 iyo 2 iyo 3 ga samaysay separate marka kala dhigto kala duwankisid 1 iyo 2 iyo 3 kale halka ka samaysay lacagtani cirif bay saa ugala baxday in lacagtani saa u soo socoto correction kale continuation laakiin xoogaa anigu waan ka masuugay waxay samaynayso laakiin waa lacagtan weli anigu kama rajo dhigin laakiin waa fursadeedii salka ahayd way ku jirtaa laakiin corrective-kada sii dheeraan kale ku jirto marka farahan ka qaadayna okay waxaan imaanaynaa marka saaxiibayaal lacagta tan si gooniya isha ugu haya waxay samaynaysaa marxaladeeda dhaqaaq correction ba ka sugnaa correctionka inaad ka qaadataa si qurxoon ba hadda meesha tan ugu meeraysanaysaa markaad fiirisid iyo wejigeedeeda iyo waxay samaynayso ma xuma fursadaheedu ma xuma ayna siinaysaa lacagtan aad uma liitaan laakiin aan waxa weeye aan ilaashano structurekeedu aad baan ugu helay samaynayso laakiin waa waxoogaa hadda listigayga aad uma jirto dahabka hadda AUD USD iyo arday waxay iga codsanaysaa dahabka AUD USD iyo waxay iga codsanaysaa dahabka labadaba waa idin fiirinaya insha Allah okay lacagta tan waa iskaga haray laftigeedu aad uma aanan ilaashanayn wejigeeda iyo waxay samaynayso lacagta bartaas ka sugaya inay tagto ilaa halkaas dollarkeena ku xiran tahay structurekeeda marka ilaa amarka corrective ay ku tagayso ana waxaan dhihi lahaa dollarkan sugaynaa intay markaas soo jahaysanaysa dollarku markuu jahaysto bay jahaysanaysaa inta ka horeysa may waxba gold waan aniga idin sheegay oo idin ahday wuxuu marxaladdu ku jiro iyo meesha uu marayaba iyo xaaladiisaba anagii bartan ka falanqaynay toddobaadkii hore aan nirahnay dollarku waxa uu samaysanayo marxaladda tan uu si qaab dar halka intuu kasoo dhaco anaga ilaa halka uu darasnay inuu tegayo kadibna meesha ta kasoo laabanayo ilaa halkaas uu kasoo dhacayo barta imaanayo laakiin meesha tan uu ka kala wareegaya idin sheegay structure ahaan meesha kasii kala wareegayo dollarku laakiin hoos buu sii dhacay meesha ta markuu jabsaday correction buu halkaa ka samaystay correctionkii markuu samaystana kadib maxaa dhacay uu sii dhacayo lacagtani isla egtiyo dhaqaaqii buu kusii socdaa weli aan kala dheerayn dollarku hadda marka wuxuu taagan yahay timekii uu aad u jahaysan lahaa uu maray hadduu correctionka marka baxay timekii u jahaysan lahaa uu maray laakiin weli waa lays haystaa oo waa maxay sababta laysku haysto meesha uu marayaa laysku haystaa hadda ma tahay meel uu kusii nagaanayo ma tahay meel uu kusii soconayo aad layskugu haystaa hadda meesha uu hadda marayo inay tahay meel uu kusii nagaanayo meel uu kusii soconayo aad layskugu haystaa ma samayn karaa inuu barta intuu ka kala wareego dollarku wax leeyahay lacagta tan ay jahaysato oo meesha kale ku jahaysato ilaa halkaa tagto laftigeeda waa laysku hayaa inuu bartaas saa usii dhaadhaco oo halkaa tago sababtoo ah hadda labadan garab iyo madaxa kana cabirkooda wuu dhammaystay oo markaad fiirisid cabirkooda wuu dhammaystay inuu sidaas sameeyo halkana 1 iyo 2 iyo 3 descend inuu structure ka samaysanaya marka aad baa waxa weeye structurekaas isaga laftigiisu in loo daymo lahaado laakiin lacagta tan intii xasuusato aniga bartaa ka odorsnay qaabkiisii iyo waxa weeye correction buu halka samaystay markuu soo jabay dhaqaaqii oo kale dhaqaaq leeg ku soo dhaqaaqay marxaladan uu marayaa laakiin meesha tan meel xasaasi hadduu correction samaysto kadib uu sii socon karaa marka anu waxaan dhihi lahaa qofkii hadda ku jiro iskaga bax qofkii ku jiro haddii aad
waxa weeye ku sii jirtid oo faa'iidada qayb xirnaysa qaybta kalena aad ka simaarin kartid waad samayn kartaa laakiin marxaladda uu ku jiro waa correctionkaas dhaqaaqaasuu sii samaysanaya markuu meelaha ku wareegaya oo kale aad baa waxa weeye uga muujinayay khataro badan oo ku jira sababta laakiin markuu correctionkaas samaystay inuu sii soconayo fursaddaas waa ka dhex arkay maxaa yeelay correctionkana ku maamulaya qaabka meeshan uu marayana meel xasaasi ahayd marka doolarku wejigaas wax leeyahay wejigaas samsanaya dahabku mararba isagii doolarku ilaa hadda isagii doolarku waxa weeye isku jihad ku socdaa oo mararba iskhilaafa marna bilcagsi isku yihiin marka hadda isagii doolarku isku jihad maadaama doolarkiina sal ku socdo isagiina sal buu waxa weeye kusii socon khatartaas laftigeeda taasna way ku jirtaa meesha bilcagsina way isku noqon karaan markuu doolarku waxa weye dhan kala aado isaguna waxa weeye dhanka marna way wada socdaan hadda wax wada socdaba u eegyihiin marka waxaan idiin rajaynayaa saaxiibayaal guul iyo farxadda noocyadeeda kala duwan lacagu aad bay isku diyaarinayaan inaad fursadaha isha ku haysaan iyo xeerarkaas aan idiin sheegay iyo qawaaniintaas insha allah waad guulaysanaysaan wixii xoga update-ana waa isla soconayna haddii la yidhaahdo waa mahadsantihiin walaalayaal allah idin sharfo guulaysta farxadda noocyadeeda kala duwan baa idiin rajaynayaa iyo inaad ka faa'iidaysataan fursadaha aan idin tusay waa mahadsantihiin